waxaan marnaba muran galaynin in qof kasta oo dunida saarani uu leeyahay milooyin uu rabo inuu ka gungaadho, balse haddii aadan adigu lahayn awoodaha iyo loo dhalayga lagama maarmaanka u ah gaarista yoolkaaga, waxaa qurxoon inaad la noolaato nolosha dhabta. hana yeelin sidii uu yeelay Carlos Enrique Raposo oo loo yaqaanay Carlos Kaiser, kaasi oo loo aqoonsaday inuu yahay beenaalihii ugu tunka weynaa dunida kubadda cagta. waxa uu jeclaa in uu meel sare ka gaaro nolosha kubadda cagta, isagoo aanan lahayn awoodaha iyo loo dhalayga cawska jiilaal u ah halka uu hiigsanayay. sidaas daraaddeed waxa uu jeexday waddo kale oo uu ku gaari karo himiladiisii, taasi oo ah been kashfidin. waxa uu yahay isagoo oo ka yeelay naftiisa mid aad u caanbaxda beenta iyo khiyaamada uu isticmaalaya aawadeed. waxaana uu naftiisa ka yeelay weeraryahan xirfadyaqaan aan loo gelin inuu yahay, iyadoo ay xaqiiqadu tahay in aanu weligiis kulan caadiya aanu ciyaarin, goolna abid aanu shabaagta ku toosanin. waxa uu dhashay Carlos sanadkii 1963, waxaana uu ahaa cunug dhibaato badan oo aad u jecel kubadda cagta. waxay ahayd riyadiisu inuu noqdo laacib caan ah oo xirfadyaqaan ah. waxa uu kula baxay magaca Kaiser u ekaanshihiisii xad-dhaafka ah ee France Beckenbauer yaraantiisii. waxa uu lahaa Kaiser awood maskaxeed, firidnimo, xiriir bulsheed leh, taasi oo u suuragelisay inuu yeesho darro ku gadaaman oo saaxiibtinimo aad u sii fog leh oo kala dhaxaysay ciyaartooydii 80-yadii ugu caansanaa dunida kubadda cagta sida Carlos Alberto, Ricardo Rojo iyo Ronaldo Jojo. waxaana uu samaystay shabakad xiriir oo saaxiibtinimo leh, taasi oo ka qayb qaadanaysay inuu isu sharaxo naadiyada waaweyn ee caalamka. mana aanu ku ekaanin xiriirkiisu saaxiibtinimo oo qura, balse waxa uu awood kasta oo uu leeyahay ku bixinayay inuu ku qanciyo inuu yahay isagu weeraryahan heer caalami ah, si ay u noqdaan waddo uu u maro caanbixidda iyo magacweyne aan ka hoos qodnayn. waxaana saacidaysay isaga qaabdhismeedka jirkiisa oo aad moodo inuu yahay xirfadyahan laga gabado, balse ma jirto dhankiisa awood xirfadeed oo ku habboon waxa uu sheeganayo. waana taas sababta ka dambeysay inuu ka been sheego kulamada loo qabto in lagu tijaabiyo xirfadiisa, isagoo oo galbeedka, bariga, koonfurta iyo waqooyigaba u kala orda garoonka gudihiisa. balse marka ay timaado waqtiga loo baahan yahay in la laado kubadda ama la farsameeyo, waxa uu sheegan jiray inuu dhaawac soo gaaray. suuragal qaybsiin inay ka maagtay sheekadan, balse waa xaqiiqo jirta. waxaana markasta saacidaysay Kaiser. ma jirin aaladaha casriga ah ee hadda jira, kuwaasi oo judhaba soo saaraya laacibka dhaawacmay iyo kan sida Carlos ka been sheegay. waxaana uu ka soo galay dunida kubadda cagta naadiga reer Brazil ee Botafogo, halkaasi oo saaxiibtinimo dhiig isu shubid ah uu ka dhex samaystay xidigaha naadigaasi. marmar waxaa dhici jirtay in xilliyada alamintada uu ku bedelo laacibiinta iyo tababarayaasha waqtiyo xafladeed, isagoo oo dumar ugu keeni jiray garoomada dedan ee alamintada lagu sameeyo, iyadoo oo maamulka sare ee naadigu aanu ka warqabin. haddii ogaal dhacna, waxa uu lahaa farsamo aan laga been sheegi karin oo uu ku marin habaabin jiray hagayaasha sare. waxaana jiray farsamooyin iyo iska yeelyeel heer sare ah oo uu lahaa, sida in uu sheegto in ay la soo xiriireen wakiilada ciyaartooyda Yurub si ay ula soo wareegaan dalabkoodana uu u aqbalo, isagoo isticmaalaya luqadda Ingiriiska oo badanaa inta ka agdhow aanay si fiican u aqoonin waqtigaasi. sidoo kale waxa uu iska lahaa dhakhtar u khaas ah oo ilkaha ka shaqeeya, isagoo marka la sheego in uu ka soo kabtay dhaawacyada addimada ama murqaha soo gaara, ayuu haddana waxa uu sheegi jiray in uu qabo xanuun ciridka ku dhaca, sidaas daraaddeedna aanu kulama ciyaari karin usbuucyo iyo bilo soo aadan. sanado iyo bilo ayuu sidaasi hadba naadi kula joogi jiray. sidoo kale farsamooyinkiisa aadka uga saaciday in ay naadiyadu isweydiiyaan waxaa ka mid ahayd saaxiibtinimadiisii casho milixa ahayd ee uu la lahaa saxafiyiinta, kuwaasi oo aad u buunbuunin jiray waxa aan jirinna ku saacidi jiray in ay ka qoraan. waana sababahaas iyo dadaalada marin habaabiska leh tan u soo dhaweysay inuu noqdo 20 jirkiisiiba laacib aad u caanbaxay oo si fiican loo wada yaqaan, iyadoo aanay jirin cid kulan uu sabtay ama gool uu dhaliyeed aragtay. balse iyadoo ay sidaasi tahay ayaa waxa u suura gashay inuu ka mid noqdo naadiyada ugu waaweyn Brazil, waxaana ka mid ahaa Flamengo, xitaa isagoo ku guuleystay inuu ka mid noqdo naadiga reer France Ajaccio oo markaasi ka ciyaaraya horyaalka labaad 1986. iyadoo uu kulankiisu bandhigista laacibka cusub iyo kulankiisii ugu horeeyayba ay isku maalin ahayd, ayaa waxaa soo xaadiray dadweyne aad u tiro badan oo u xiiso qaba in ay arkaan farsamooyinka dhagahooda ka batay ee uu leeyahay laacibkan cusub ee naadigu la soo wareegay. laakiin Carlos Kaiser ma ahan nin looga boqo inuu dheeldheel ku fashilmo. judhiba waxa uu bedelay taatikadiisii, isagoo oo kubadaha u laalaadayay taageerayaasha tarabuunka fadhiya dhankooda si loo moodo inuu u hadiyeynayo taageerayaashiisa. dhanka kale, saaxiibadiisa saxaafaddu waxay Brazil gudaheeda ka waday ololaha caanbixinta, iyagoo oo sheegay in Carlos uu noqday gooldhaliyaha naadiga sanado dhowr ah ayuu Faransa ku qaatay. sanado ka gadaal waxa uu dib ugu soo noqday naadiga Pagia ee Brazil, markaas oo shirkadda fangareysan naadiga ay amartay
si kasta oo ay tahay inuu kulan ka soo muuqdo saxiixa cusub ee Carlos ay u helaan lacag badan maadaama uu ahaa xidig aad loo wada yaqaan lagana sugayo in lagu arko fanaanada naadiga. Enrique markan waxa uu u dhawaaday inuu fashilmo balse miyuu ahaa deenin sahlan? Waa maya. Kolka ciyaarta la baasayba waxa uu dagaal iyo dood la galay taageerayaal uu kubadda ku tuuray si Albitro Rosso uu siiyo waana uu helay isagoo ciyaarta bilowgiiba looga saaray kaarka cas. ka gadaal waqti 24 sano ku siman oo uu ahaa laacib magac dheer oo aan dheelin kulamo aan ka badnayn 13 kulan oo kaliya daqiiqado aad u yarna ka ciyaaray kulamadaasi kahor inta aan dhaawac sheeganin waligiisna aan u dabaaldegin loona saabatumin gool uu dhaliyay waana uu isaga fariistay kubadda cagta isagoo waagi dambe naadiga Vasco da Gama heshiis la galay kaasi oo uu ka saacidayo laacibinta balwada leh in ay joojiyaan shaatigiisa oo dhanka balwadaha uga dhaqnaa awadeed. bishii November 2015 ayaa waxa uu heshiis la galay shirkadda samaysa filmaanta ee ku taala boqortooyada Sacuudiga taasi oo sameynaysa filim ku saabsan noloshiisa. sidoo kale waxaa la soo bandhigayaa sanadka 2018 buug ama dhagana ka sheekeynaya noloshiisa maskaxda badneed waxaana buugaasi la yiraahdaa The Greatest Football Never to Have Played Football taasi oo la micno ah laacibkii weynaa ee aanan ciyaarin kubadda cagta weligiis waxaana qoray suxufiga caanka ah ee Rob Smith. dhab ahaantii Carlos Kaiser ma ahayn laacib ku caan baxay farsamooyinka lugihiisu ay ka yaqaaniin kubadda cagta balse waxa uu ku mutaystay magaca iyo taariikhda ballaaran ee la yaabka leh farsamooyinka maskaxdiisu ay ka dhashay kubadda cagta waana taa sababta uu Carlos u noqday khaa'inka ugu weynaa dunida kubadda cagta oo ma waanu ahayn mahadsanidin waxaan la socodsiinayay aniga oo ah Ciise Maxamuud Ciise fadlan nagu dhiirigeli subscribe iyo share dadna ka hel channelkeena taariikho dad nolosha guula ka gaaray iyo warbixino xiiso